Assalaamu calaykum. Muuqaalkeen maanta waxaan uga hadli doonaa go'aan qaadashada ummadda dhabta ah. Go'aanku wuxuu noqon karaa wax kasta. Go'aan markaad qaadanaysana waxay u baahan tahay dadnimo, geesinimo iyo in aad fuliso. Go'aanku wuxuu noqon karaa for example oo kale. Waxaa tahay maanta arday dugsi hoose ama dugsi dhexe ama xitaa aan dhahna ilaa heer jaamacadeed. Waxaad jeceshahay waxbarashadaada inaad ka dhabayso in maxayraada go'aan ku qaadato sidii heer wax lagu gaari lahayd. Tusaale kaleento waxaad jeceshahay inaad noqoto mutacalimad ama mutacalim. Sidoo kale go'aanku wuxuu noqon karaa insaan baynu nahay, insaankana macnihiisa waa kii ilowshaha badnaa. Waxaa laga yaabaa maanta in maxayraada dambiyada wax kastoo dembi ah oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala naga reebay in aan samaynayno. Tusaale kaleento sidii inaan heesaa dhegeysano. Waxaad jeceshahay in maxayraada go'aanka aad ku qaadato inaad heesaa iska dhaafto. Waxaad jeceshahay sidoo kaleeto in maxayraada maalin iska dhaaftanto waxyaalahaas ama dambiyadaas aad samaynayso laakiin weli maadan samaynin. Sidoo kale go'aanku wuxuu noqon karaa haddii maanta lamaane ama dad isjecel oo is soo gaclooday jecel isku soo arooseen maxayraada waxaa laga yaabaa in gacaylkooda uu ziyaado ilaa heer mustaqbalka ay nolosha ay wadaagaan. Waxaa dhici karta in haddii maxayraada maanta jacaylkooda oo dadkaas lamaanaas galgacayl isku soo aroosay waxaa laga yaabaa in meesha ubad uu yimaado. Ubadka markii la dhalana waxoogaa maxayraada in khilaafaad ama arrimo kale ay soo dhexgalaan. Waxaa dhici karta in maanta maxayraada labadaas ay kala tagaan laakiin weli meesha waxaa yaalo waxay tahay waa ubadkii ay dhaleen. Waxaa dhici karta in wiilka ama gabadha inta badan waxa go'aan qaadato waxay tahay waa gabadha. Waxaa laga yaabaa in gabadh ay u fikirto ay dhahdo maxayraada aniga nin dambe oo ma aadi doono oo nin dambe ma guursan doono. Kaliya maanta laga bilaabo maxayraada waxaan u halgami doonaa nolosheeda iyo tan ubadkaan dhalay. Iyadoo sidaas go'aan ay ku gaarayso. Laakiin waxaa laga yaabaa in haddii muddo ay kasoo kasbato maxayraada go'aamadii ay ku gaartay in aysan nin dambe aysan aroosi doonin kadibna wax walba isbedelaan. Laakiin marka dambena haddana nolol kale cusub ay bilowdo. Laakiin go'aan qaadashadu midaas ma noqon karto. Go'aanku wuxuu u baahan yahay waxay tahay waa dadnimo, geesinimo iyo inaad fuliso. Sidoo kaleeto markastana ha iloobin in Ilaahay subxaanahu wa tacaala aad tala saarto. Markasta u baahan tahay in maxayraada go'aan dhab ah aad gaarto waxaa loo baahan yahay inaad Ilaahay subxaanahu wa tacaala aad xasuusto. فإذا عزمت فتوكل على الله. haddii aad go'aan gaarto Ilaahay subxaanahu wa tacaala wakiisho oo tawakalka Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo talada saaro. in Allah yuhibbu al-mutawakkiliin. Allah subxaanahu wa tacaala wuu jecel yahay kuwa wakiishta oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbi maxayraada talada saarta. السلام عليكم. فإذا عزمت فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين.